السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawaneysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena koobaad. maanta waa Arbaco, taariikhduna waa 5 bisha Agosto sanadka 2026. barnaamijka waa kii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono. qodobada barnaamijka aynu kusoo gudbinayno waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu waaweynaa ee kasoo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe. afhayeenka xuutiga General Yahya Sariic oo goordhow sheegay in ay gubeen markab kuwa shidaalka qaada oo uu Sacuudigu leeyahay. Trump iyo ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo hadallo kulul isdhaafsaday. nin la sheegay inuu qorsheynayay inuu dilo oo uu ka takhaluso ninka la yiraahdo Trump oo la sheegay ciidamada ilaalada Trump in ay qabteen. haddaba wararkaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta Arbaca ku soo qaadanayna. inta aan ku jirnana wixii akhbaarada ee soo kordha waan idinla socodsiin doona. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta Arbaca. waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. waa Arbaco, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 5 bisha 8 2026. haddaba iyadoo ay noo soo socdaan warar muhiim ah ayaanu marka hore ku bilaabaynaa warka hadda soo dhacay ee aad looga hadlayo. xuutiyiinta dalka Yemen afhayeenkooda General Yahya Sariic ayaa goordhow sheegay in xuutigu ay gubeen markab kuwa shidaalka qaada oo Sacuudigu uu leeyahay kaasoo marayay meel ku dhow xeebaha Sacuudiga gaar ahaan Badda Cas. haddaba shalay ayay ahayd xuutigu marka ay weerareen garoon diyaaradeed oo Sacuudigu uu leeyahay oo diyaarado daroon ay ku weerareen. maantana waa kan markabkaas ayay waxay leeyihiin waa gubn. Sacuudigii afkii baa juqda gabay. ilaa hadda wax wara oo Sacuudiga laga hayo ma jiraan. haddaba markaan idintuso telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow sheegay xuutiyiintu waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen oo ay la dhaceen markab kuwa shidaalka qaada oo Sacuudigu leeyahay kaasoo marayay dhanka waqooyi ee Baxrul Axmar ama Badda Cas. afhayeenka militariga kooxda jamaacada Ansaarullah xuutiyiinta dalka Yemen General Yahya Sariic ayaa sheegay in kooxdoodu ay markaa beegsatay markab kuwa shidaalka qaada oo Sacuudigu leeyahay waqooyiga Baxrul Axmar. waxaana la sheegay in markabka lagu beegsaday meel ku dhow deegaanka la yiraahdo Yumbu oo markaasi ay ku rideen dhowr gantaal oo balaastiga inay ku weerareen. haddaba Yahya Sariic wuxuu sheegay in guud ahaan maraakiibta ay beegsadeen tan iyo markii ay Sacuudiga isku dhaceen oo xayiraada Sacuudiga ay saareen 22 bishii July ee la soo dhaafay ama bishii Luulyo ee la soo dhaafay. maraakiibta Sacuudiga ay ka garaaceen inay gaarayso sida uu yiri 8 markab oo kuwa qaada shidaalka ah. waxaana uu sheegay in ay sidoo kale ka mamnuuceen inay Sacuudiga u gudbaan oo ay tagaan 29 markab kale. waxaana uu sheegay maanta oo Arbaca inay ugu dambeysay markabkaasi inay weerareen oo ay gantaalo la dhaceen. waxaana uu sheegay gantaalku inuu siday tahay ugu dhacay oo aan ba lala gafin gantaalihii lagu riday. waa tahay Sacuudiga dee halkaa dhibaataa ka haysata. nimankan xuutiga ayuu Sacuudigu faraha la galay uu isku taataabtay. marka hadda waxaa ka raacaysa warnimanka maxaa qoorta ii geliyay hadda ka maray Sacuudiga. marka sheekadaas halkaasay maraysaa. marka dhanka kale Sacuudiga inta aanay nimanka kan warka soo saarin xuutiga Sacuudigu waxay beeninayeen warar la isla dhexmaray oo sheegayay Sacuudigu inuu erga u dirsaday Cumaanta iyo xuutiga iyo xogaa way isku fiican yihiin nimanka Yemeniyiinta. marka in meeshaan waan ay ka socoto Sacuudiga uu rabo warnimanka dhibkooda inuu iska aaminsiiyo. laakiin wararkaasu markay soo baxeen Sacuudigii ayaa beeninaya oo leh wax waana oo kooxda aan la galayno ma jiro.
dhanka kalena wuxuu beeninayaa wararka sheegaya in sacuudigu go'doomiyey Yemen oo dagaalku meesha uu ka bilowday ma jirtay leeyihiin marka wararkaas iyaguna wararka socda ee soo dhacay ayay ka mid yihiin waayay xuuti sacuudiga marka sheekadooda halkaasaan kaga gudbaynaa wararka kale ee saakay warbaahinta saara waxaa ka mid ah ninkii Trump ahaa iyo ciidanka ilaalada kacaanka ayaa isu jawaabay Trump hanjabaadiisa heshiiskiisa wixiisa dhan waa isku xixigaan marba midkuu rabo soo qaataa wuu iska sheegaa waa lagu wareeray haddaba markaan idin tuso marka hore Trump aan ku hormaraynaa wakaaladda wararka Anadolu waxay leedahay Trump wuxuu wacad ku maray in Iiraan uu garaaci doono waliba garaacid daran uu garaaci doono haddii Iiraaniyiintu ay diidaan inay dib u furaan meesha la yiraahdo marinbiyoodka Hormuz inay dib u furaan haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aroortan saakay oo Arbaca waxa uu ugu hanjabay Iiraan inuu si xun u garaaci doono haddii wada xaajoodka ay diidaan iyo inay furaan sida ugu dhaqsaha badan marinbiyoodka Hormuz Trump ayaa waraysi siiyey telefishinka Mareykanka ee la yiraahdo Fox News waxaana la sheegay in uu ka hadlayay xaaladaha guud waxa uu sheegay in maalmaha soo socda in degdeg loo furi doono marinbiyoodka Hormuz way ninka marka waraysigaas uu bixiyay wuxuu yiri haddii ay furi waayaan maalmaha soo socda marinbiyoodka Hormuz shuruud la'aan Iiraaniyiin waxaan garaaci doonaa garaacid daran Iiraan marka dadka loo hanjabayo oo markiiba kala cararaya miyaa may waxaa markiiba u jawaabay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ninkan waa idin sheegay aniga Trump nimankan way barteen hanjabaad markuu la yimaado waxay leeyihiin war annaga hanjabaad waxba noogama cunays ee waxaad hayso la imaa walraa haddaba marka jawaabta aan idin tuso ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan isla wakaaladda wararka Anadolu ayaa sheegaysa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay sheegeen Iiraan inaanay wax heshiisaba gaari doonin inta hanjabaadaha Mareykanku ay iska soo daba dhacayaan oo hanjabaadda Mareykanku ay socoto haddaba maanta oo Arbaca ayaa waxay sheegeen ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan in markaasi aanay jiri doonin wax heshiisa oo la saxiixayo inta hanjabaadda Mareykanka ay socoto oo dhanka militariga ku saabsan haddaba sida ay daabacday wakaaladda wararka ee la yiraahdo Sabah News oo soo xiganaysay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan mas'uuliyiin ka tirsan waxay sheegeen inaan Iiraan marnaba aqbalaynin inay wax heshiisa oo gaarto oo Hormuz ku saabsan inta Mareykanku uu luqadiisu uu wax ka bedelayo oo dhanka hanjabaad hadday tahay wax ay heshiis gaareen ma leeyahay meesha marka waa la yaqaan adeero inta aad booteynayso oo boolo xoofto iyo wax weyn ah sameynaya aad leedahay maba saxiixaynaba heshiis waxa keenaysid كان تاجن تاجين وكان مركا ماشان وكان بركان كيو ربك ويسايا مركا حالكاس السجورة وركاسا كعصب تراب إيران يجورا ساسا ليسوق بوتينيا أو بوتلاس أي صعدة وين وركا كلا يقول طبيعي وين ورباهين تو أي آد وقال الله يسوع كمله نكي ترامها أي وحال ليه يعني مركله nin doonayay inuu khaarijiyo oo uu ka takhaluso ayaa la qabtay waa yaab ninkan xagee lagu qabtay xageese Trump iyo asagoo isku arkeen Trump waxa la yiri waxa uu qorshaysnaa inuu tago meel uu ku ciyaarayay ciyaarta lira golfka uu jecel yahay ciyaartaas meeshii inta uusan tagin Trump nin baa gaarigiisa isagoo wata meel ku dhow tagay sawirro meesha ka qaadanayay odaga meesha uu istaagayo meesha uu ku ciyaarayo wixii marka ciidamada ilaalada madaxweynaha meel walba uu madaxweynuhu jecel yahay inuu tago way ilaaliyaan marka waxa la yiri ninkan muxuu ahaa ninkii waa la qabtay maana qoriyo wata waa la baaray 16 rasaas oo wata gaarigiisa limid waa la baaray baastoolada u saaran هاي شيكاتبت
odaga meeshiisa la sawiranayay gaarigana alaabtan lagu watay odagiyaa wax yar soo daa inuu imaadaa la rabay ciyaarta bilaab waa laga takhalusi lahaa lagu leeyahay ninkii taraama cabsiya badishay waa lagu dili lahaa meeqa jeeraa la leeyahay meeqa jeera halkaana lagu soo galay la leeyahay waa la yaabay haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay telefishinka alcarabiya wuxuu leeyahay waxaa la xiray nin hubaysan oo markaa ku sugnaa meel ku dhow garoon uu ku ciyaari lahaa Trump golf ciyaarta la yiraahdo meesha la yiraahdo Los Angeles ayayna ka dhacday sheekadan haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay mas'uuliyiinta Mareykanka waxay sheegeen in gacanta lagu dhigay oo la qabtay nin markaasi eedaysana ah oo markaa ku sugnaa meel amnigeeda la ilaalinayay oo uu tagayay madaxweynaha si uu ugu ciyaaro ciyaarta golfka marka uu madaxweynaha Mareykanka laabto dhanka kale waxaa la sheegayaa in Los Angeles magaalada la leeyahay ay meesha ku dhowdahay oo madaxweynuhu tagi lahaa haddaba wararku way sii socdeen waxa leeyahay booliiska waxay sheegeen Los Angeles in markaa ninkan la qabtay magaciisa lagu sheegay Janin John Tile waxaana da'diisa ay ahayd sida la leeyahay 38 sano ayay ahayd ninkan wuxuu sawirro ka qaadayay goobta waxaana la sheegay inuu haystay qoray iyo rasaas 16 xabadooda gaarigiisana waxay booliisku sheegeen inay ka heleen baastoolad marka ninkan mar walba waxa leeyahay waa la dili lahaa saana la sameyn lahaa waa hotel u joogaanin u galay marka meeshan laftirkeeda golfka uu ku ciyaarayo hadda ka hor nin kala sidoo kale lagu qabtay oo meesha joogay marka meel walba marka odagii marka meel uu cagta dhigo ayuu leeyahay marka waa cabsidii aayatullaahiga iyo hanjabaadii Iiraanna meel kale taagatahay marka sheekooyinkaas iyo wararkaas ayaa ugu cusba ama ugu dambeeyay caalamka gaar ahaan bariga dhexe iyo Mareykanka wixii ka soo kordhay inta aynu barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta ku soo qaadanayna haddii alla idmo wixii kale warar soo kordhay muhiima barnaamijyada dambe ayaanu idin kula wadaagi doonaa fadlan like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka inta aan mar kale kulmayno asxaabay haddii alla idmo iyo kulan kale nabadgelyo